Banaanbax nabadeed oo lagu taageerayay go'aankii beesha tanade ay ka qaadatay maamulka Puntland ayaa waxa uu ka dhacay degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Banaanbaxani ayaa waxa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada sida isimo, ganacsato, siyaasiyiin, ururka haweenka, ururka dhalinyarada iyo waxgarad kale. Ugu horeyntiina waxa bulshada banaanbaxaysay la hadlay gudoomiyihii hore ee degmada Galdogob Cabdullaahi Macalin Siciid, ganacsade Maxamuud Gabal iyo nabadoon Siciid Faarax Garas. Laga soo bilaabo 1998 waxaynu wax ka dhisnay maamulkii Puntland oo ahaa laga dhisay goobtii aynu deganayno Ilaahayna ku abuuray. waxaa lagu dhisay dulqaad, samir, isu tanaasul iyo in wixii khaldan markay wax maamulmaan dib laga dhiso. muddada dheer kadib beeshan go'aanka gaadhay 22 bishan December waxay weysay markay in badan dibad iyo daakhilba ay martay oo shirar badan qabatay oo codsi badan fulisay oo cabasho badan muujisay oo loo qiray inay ku dulman yihiin xuquuqdoodina ay ku maqan tahay. sida aawadeed waxaa ka soo baxay go'aanka maqasheen oo ah inaynu kala laabanay kalsoonidii iyo wada shaqayntii maamulka Puntland. waxaynu qaadanay go'aanka dhammaan dadka ku abtirsada magaca oo cadaaladda ka rajaynaya in wixii maanta ama 22 bisha ka dambeeya lagu dhaqmo dadka cadaaladda rajaynaya inay go'aanka qaateen inaynu wada taageerna waajiba. horta aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadka ay sharafka ay ka soo qayb galay barnaamijkan ayadaada barnaamijkii ay qabiiladu ku gaartay inay xuquuqdooda ka raadsato dawladda Puntland. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. insha Allah hadii Ilaahay waxaynu qaban doonaa barnaamijyo waaweyn oo ka waaweyn midkaan aynu hadda joogno. waxaynu kala samayn doonaa wax kasta oo maaragtay nabadgelyo ah. waxa weeye barnaamijkii iyo shirkii ka dhacay Gaalkacyo iyo qodobadii ka soo baxay dad badan baa si xun u turjumay. ma doonayno in barnaamijkayaga si xun loo turjumo. annagu waxa weeye dhulkayagu waa dhulka Puntland weeye, deegaankayagu waa deegaanka Puntland. xuquuqda aan leenahay raadsanayna mooyaane waxa weeye dhulkayagi kamaana tanaasulin. qof walbaaba inuu sidaa u fahmaa la rabaa. lama rabo in caadifad wax lagu duldhiso, lama rabo wax qaldan in la isu sheego, lama rabo inaynu maaragtay xadgudub samayno. waxa weeye inagu waxaynu isugu nimid oo aynu cadaynaynaa inaanu raadsanayno xuquuqdayadii iyo matalaadayadii aanu ku lahayn dawlad goboleedka Puntland. muhiimaddu waxa weeye dalkan iyo dadkan aynu la joognay dalka innaga iskale, dalka Puntland la yiraahdo innaga iskale, dadkan joogana waa walaalaheen. waxaynu doonaynaa inuu garanno inay xaq ina ka maqan oo kaliya yihiin. xaq ina ka maqan sidaynu ku dooni lahayn weeye sidaan kalsoonida aan la noqonayna waa siyaasigii weeye, siyaasadii weeye. sidoo kale waxaa banaanbaxanay hadallo lagu taageerayay ka jeediyay gudoomiyaha ururka haweenka King Afa iyo siyaasi Shaafici Cabdullaahi. anigu Puntland baan ka tirsanahay, Puntland baan u dhashay. Puntland ma aha hal qabiil ah oo fahminina, waa beelo wax isku darsaday. beelihii hadii ay wixii ay isku darsadeen ay ku kalsooni ku wada shaqeyn waayeen waa qasab inay beelo waxa weeye sidii ay shaqada loogu talagalay loo shaqeyn waayo. qoladii ikhtiyaar bay leedahay allaasha kalsoonideeda baan calaamay anagu ilaa amar dambe. hadday Galdogob joogaan iyo hadday adduunka daafiisa joogaan bayaankaas baanu taageeraynaa. talaabadu gooni bay noo tahay, talaabada siyaasadeed gooni bay noo tahay, mashruucdeena siyaasadeedna gooni bay noo tahay. waxaanu isku ognahay isku duubni, waxaanu isku ognahay isku tiirsanaan, waxaanu isku ognahay wada jir, waxaanu isku ognahay wada shaqayn baanu isku ognahay. banaanbaxani oo ahaa mid ballaaran ayaa waxa uu ku soo idlaaday si nabdoon. Maxamed Cumar Afdhub, wararka warbaahinta caalamiga ah ee SBC magaalada Galdogob.